waxaa jirta kelmad dhehaysa gabar walba waxa ay isku haysataa inay qurxan tahay xitaa haddii aysan qurxanayn make up iyo waxyaalo lamid ah ayay isku qurxisaa sidoo kale gabdhaha waxaa ku abuuran waxa loo yaqaan ego ama kibir midaas oo kabil ahaan kugu adkaan doonta sida loo dhaqmo gabdhaha haddii aadan fahansaneyn sida saxda ah ee kibirkaas loo jabiyo muuqaalkan waxaan kuula wadaagi doonaa 6 qodob oo aad gabar walba kibirkeeda dhulka ugu dari karto qodobka koowaad you are the superior qofka muhiimka ah waa adiga haddii aad tahay wiilkaas waqti badan ku bixinaya sidoo uu noloshiisa ku horumarin lahaa waalidkiisa ku caawin lahaa waxa qasab ah adiga in aad tahay qofka muhiimka ah markii loo barbar dhigo gabadhaas aan waxba qaban kaliya ka shaqeysa sida ay isku qurxin lahayd sax way qurxan tahay soo jiidasho ayayna leedahay balse ma jirto wax loo barbar dhigi karo shaqada adag ee aad maalin walba qabato iyo juhdiga aad bixiso halkan runta ugu imo saaxiib gabdhuhu waa kuwa si hoose ku fiirin doona haddii aadan ahayn nin iyada ka sarreeya dhan walba physical financial emotional balse marka ay ogaato in muhiimadaadu ugu weyn in aysan ahayn iyada ee aad leedahay qorshayaal iyada ka muhiimsan way ku ixtiraami doontaa kibirna meel ayay iska soo dhigi doontaa if she respect you she will sleep with you gabarna ninka ay xushmad u hayso ayay la jiifataa sida gabar lagu dhigo mid ku xushmaysa muuqaalkan xiga ayuu noqon doonaa ha hilmaamin in aad kanaalka subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato qodobka labaad oo aad gabar kibirkeeda hoos ugu dhigi karto muhiimkana ah waxa waaye ha ku amaanin jirkeeda badi wiilashu waa kuwa ay caadi la noqotay in ay gabar dhahaan qurxiley ayaa tahay caadi ma tihid la soco mar walba oo aad gabar sida ay u egtahay ku ammaantid waa mar walba oo gabadhaas qiimihii agteeda aad ku lehed aad sii luminayso horey ma u aragtay wiil ay gabdhuhu daba ordaan oo gabar ku dhahaya abay qurxiley ayaa tahay ninka qiimaha leh dibciga dumarka fahansan marna gabar jirkeeda kuma ammaano kuma lihi ha ammaanin waa loo baahan yahay balse gabadha ku ammaan wixii ay shaqaysato haddii dabeecad wanaagsan ay leedahay ku ammaan dabeecadeeda wanaagsan dadaalkeeda qodobka saddexaad gooliskaaga ama riyooyinkaaga ayaa ka horeeya wax walba waxaa jira wax la dhaho hypergamy oo caalamka la isku raacay oo ah in dumarku mar walba ay rabaan wax iyada ka sarreeya haddii aad leedahay qorshayaal iyada ka sarreeya oo ay aragto in iyada lagaga muhiimsan yahay wax aad halkaas ku burburin doontaa kibirkeedii adiga oo hoggaanka u qaban doona xiriirka balse arrintan waxaa ka horeeya adiga inaad marka hore nolosha hadaf ka leedahay digsa qorshayaal dhab ah maanta bilow inaad ka dhabayso jirkaaga ayaad dhisi kartaa waxaadna noqon kartaa wiilka xaafadda ugu dhisan waa haddii aad go'aan dhab ah la timaado sidoo kale luuqad cusub ayaad baran kartaa xitaa yoolal fogfog ayaad degsan kartaa qodobka ama mawduuca afraad jooji in aad u muuqato nin saa'id ugu baahan iyada wiilasha qaar xitaa kontaroolka ayaa ka luma marka ay meel ku arkaan gabar ay jecel yihiin wax ayna dhahaan aad ayaan ugu faraxsanaya inaan ku arko waan kugu riyoodaa way isku dhex yaacaan sida ilmo yar oo laga farxiyey xitaa haddii aad saa'id ugu faraxsan tahay in aad aragto saaxiib waa in aad taqaana sida loo kontaroolo rabitaankaaga iska dhig qof aan kala jecleen haddii uu arko iyo haddii kale waxaan kuuba waxa ay isweydii doontaa muxuu ninkan sidaan oo dhan uga duwan yahay nimanka kale emotional control waa mawduuc muhiim ah nolosha dhan walba muuqaaladana xiga ayuu ka mid noqon doonaa qodobka shanaad marna gabar hala murmin haddii ay gabar kugu bilowdo sabab la'aan in ay kugula doodo ama ixtiraam daro kugu samayso sida in ay ballan kulan oo aad laheedeen baajiso hadhihin maxaa u imaan weysay in badan ama ha qaylin kaliya ka tag weliba si degan qodobka lixaad jooji maseerka haddii aad shukaansato gabar qurux badan nin walba wuxuu isku dayi doonaa iyada inuu la hadlo ma ahan in aad maseerto oo aad ku qayliso tani waxay muujin doontaa in aadan ahayn nin isku kalsoon